xuduudii aanu lahayn oo la rabay Puntland in la ilaaliyo oo madaxweyne walba ku dhaartay inuu badbaadiyo inay badbaadsaneen waxa hoos u dhacay dhaqaalihii ummadda inuusan meeshii loogu talamarin oo maanta aanu joogno maantana madaxweynihii alla waa muuqdaa anu wasiir ka noqon maayo dawladdiisa muxuu ahaa wasiir xigeenna ka noqon maayo wasiir dawladna ka noqon maayo laakiin inaan kursika aan ku hubsanno baan ku khasbanahay waxaan ugu khasbanahay waxa weeye waa ninkaan isleenahay uu ka saari karaa maanta dhibaatada taala maxay ahayd meesha la yiraahdo Puntland maantana madaxweynihii alla waa muuqdaa alla maantana madaxweynihii alla waa muuqdaa waa khaliifina ciise mudano shacabku marxabaynayaan waa nin soo halgamay Soomaaliya wax ka soo qabtay weyn Puntland wax ka soo qabtay weyn saddex madaxweyne soo dhisay waxaa lagu yaqaanaa khaliif nin aan ka bixin ballanta uu galo nin aan ka bixin sidaad u sheegteen nin deeqsiya oo run sheeg badan oo masaakiinta u taageera ma ugu hiilinayo muxuu ahaa saaxiibtinimada ugu hiilin maayo ma ugu hiilinayo inaanu kolliig ahayn ma ugu hiilinayo inaanu ahayn muxuu ahaa isku difcad ahayn laakiin waxaan ugu hiilinayaa inuu maanta mudan yahay inuu hoggaanka u qabto Puntland oo meesha ay ku sii socoto iyo meesha ay taallo uu ka qaado ayaan ugu hiilinayaa waa nin aan ugu ku barannay dhaqan hagaagsan inkastoo saraakiisha dhaba ay muxuu ahaa dhaqan hagaagsan leeyihiin amni iyo ammaano ayuu halkudhigiisu yahay ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku yidhi لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف marka dadka in caloosh loo buuxiyo oo shaqo loo abuuro oo mushaar la siiyo amnigoodana la sugo labada wax bay ilaahayna u qabtay inay u baahin waa nin labadaba ku kalsoonahay inuu si hufan iyo si hagaagsan inuu uga soo bixi doono anu wasiir ka noqon maayo dawladdiisa muxuu ahaa wasiir xigeenna ka noqon maayo wasiir dawladna ka noqon maayo laakiin inaan kursika aan ku hubsanno baan ku khasbanahay waxaan ugu khasbanahay waxa weeye waa ninkaan isleenahay uu ka saari karaa maanta dhibaatada taala maxay ahayd meesha la yiraahdo Puntland not only Puntland Soomaaliya oo dhanba waxa weeye Puntland haddii ay hagaagto inta kalena way hagaagsan insha Allah rabbul caalamiin intaas baan rabaa inaan idhaahdo kadibna waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo saaxiibkay General Khaliif Ciise Mudan waa murashaxa madaxweynaha 2019 ee Puntland ilaahayna ku guuleeyo waxaliyay magac kule magaala kastaba waxaliyay mar walbaba dhalintu maqasho وخليفنا عيسى مدن وخليفنا عيسى مدن وخليفنا عيسى مدن وخليفنا عيسى مدن waxa qorshuhu ahaa in nin walba oo meesha soo mara uu meel gaarsiiyo oo ay noqoto qoriisu dhiib oo halkaas hore looga socdo waa la soo dadaalay madaxdii soo qabatay xukunka Puntland kuwoodii dhintana Allah u naxariisto kuwooda noolna caafimaad Allah siiyo nimankaasu taariikh bay soo mareen way soo dadaaleen way soo halgameen minba meel buu soo marsiin laakiin waxaad moodaa hadda waqtigeenu ku jiro inay hoos u dhacday wixii oo maxaa hoos u dhacay waxa u dhacay amnigii waxa u dhacay xuduudii aanu lahayn oo la rabay Puntland in la ilaaliyo oo madaxweyne walba ku dhaartay inuu badbaadiyo inay badbaadsaneen waxa hoos u dhacay dhaqaalihii ummadda inuusan meeshii loogu talamarin oo maanta aanu joogno la leeyahay airportkii baa la qabsaday oo maxaa loo qabsaday mushaar askar la siin waayay ilaahay baa idinku dhaarshay 20 sano ka bacdi waxayna qabta miyaa ana isu jawaabaya maya way dastuurka dawladda Soomaaliya waxa ku yaal
inay Puntland ka horeysay dastuurka Soomaaliya lagu dhaqo privilege-na ay leedahay talana la siinayo maanta taladii ma hayno waxa soo dhan waxay u baahan tahay in wax laga qabto dibna loo saxo meesheedii lagu celiyo waxa dhacaya dhibaatooyin dad baa dhibanaya dadkaas waa dad reer Puntland waxay u baahan yihiin in la badbaadiyo yay ku dhimanayaan waxay ku dhimanayaan qabiil waxay ku dhimanayaan khawaarij waxay ku dhimanayaan ciyaal mindiyasita maxaa ka maqan meesha amniga ummadda loo igmaday inay dawladda buuxiso dawladda waxaa laga rabaa inay amniga ummadda iyadu mas'uul ka noqoto waxaa ku dhintay sool ayaan dhaweyd dad 60 gaaraya dad 100 ka badanina waa dhaawacmeen kuwii dhintay Allah u naxariisto kuwa dhaawacana Allah u boogadhayo arrintaas waxaa mas'uuliyadda ka saaran tahay dawladda Puntland waayo waa shacab reer Puntland talaabo la qaaday ma jirto maantana madaxweynihi alla waa muuqdaa wa khaliifina ciise mudano shacabku marxabeynayaan maantana madaxweynihi alla waa muuqdaa alla maantana madaxweynihi alla waa muuqdaa wa khaliifina ciise mudano شعبكم مرحبا يا